la weydiiyey su'aasha ah yaa u mudnaa hogaamiye dunida soo mara goote waa taqaaniin goote waa shakespeare-ka jarmal ummadda afka jarmalka ku hadasha halka shakespeare ugu jiro dadka afka ingiriisiga ku hadla ayuu gooteena ugu jira weliba goote shakespeare waxyaabo aan gabayga ahayn buu geli jiray gooteeye uu dheer yahay goote baa wuxuu leeyahay haddaynu reer yurub nahay buu leeyahay wax allaaliya waxaynu afkaar hayno oo dhammi ma gaadhaysa buu leeyahay tuu maxamed gaadhay waa goote baa wuxuu isbarbardhigayaa aaraad iyo afkaarta reer yurubka iyo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dunida keenuu isdhinac dhigayaa deetana wuxuu leeyahay haddaynu reer galbeed nahay mafaahiimteennoo dhammi ma gaadhayso ilaa maa wasala ilayhi moxamed wa sawfa laa yataqadam calayhi axadun buu leeyahay mustaqbalkana ma filayo cid dhaafi doonta inay jiri doonta buu leeyahay waa gooteegii jarmal walaqad baxadtu fi اtaariikhi can muhal aclaa lihada alinsaan taariikhdoo dhan baan waxaan baadhay buu yidhi bini aadamka qof aan tusaale uga dhigo waxaan helay buu yidhi nebi moxamed inuu noqday bini aadamka qofkii aan tusaale uga dhigi lahaa sidaa awgeed buu yidhi waxaa waajiba inuu xaqu muuqdo oo korreeyo sidii uu moxamed u korreeyey ee uu dunida kelimatu tawxiid ugu kor yeelay buu leeyahay waa gabyaagii riwaayiga ahaa ee faransiis ee jarmal ee macruufii aad taqaaniin dadka wax qoraa aad bay u badan yihiin laakiin waan koobayaa filosofkii ingiriiska ahaa ee thomas carlyle lo odhan jiray thomas carlyle waxa uu ka warramayaa cibaadat alabطaal buggiisan la yidhaahdo weynida ama baطalnimada la caabudo dabeetana noloshuu qaybqaybinayaa midba meesha uu ku wenyey calaa kulli xaal wuxuu leeyahay diin marka aan ka hadlo ama rijaalka diin hoggaamiyey marka aan tilmaamo buu leeyahay moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan shaki ku jirin buu yidhi acdam inuu yahay dadka diin lagu tilmaamo inuu ahaa buu leeyahay muslix weyn oo aftahana oo geesiya oo mufakira oo sifaadka bini aadam lagu ammaanoo dhan le buu yidhi waxaana ammaantiisa kuugu filan buu leeyahy inaad qur-aankiisa akhridoo qudha waa gaal ingiriis ninka warkan qoraya walidaalika ayuha alaxiba maxay tilmaamaysaa qadiyaddani waxay tilmaamaysaa dadka wax qiimeeyey ee ama micyaar caskariya ku qiimeeyey ama micyaar psychologiga ku qiimeeyey ama micyaar taariikhiya ku qiimeeyey ama backgrounds aqoomeed oo kala gedisnaa lahaa oo ka warramay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaantood waxay tilmaamayaan inuu nebi moxamed mudnaa ama kuwa ugu mudan dunida inuu ahaa ama isagu inuu yahay kuwa mudan ka u sii mudan